waxaan rabaa mukhayr su'aashaada aw mukhayr su'aasha waad ka gaabsatay waad ku celin kartaa laakiin haddaan rabtan inaan kugu celinay inaan ka hadlayo inaan ka jawaabana ma rabin laakiin waxa weeye dadka telefishinka soo fariisto yidhaa guriga layga haystaa oo shacabka u soo bandhiga oo ayagoo cuskanay macnaha sharciga uga saaraya inuusan jirin iyo in laysku dhex dara maaha shaqo professionaala oo dal sharci ka jirta oo iyadu shuruuc leh oo 10 sano ka hor lagu kala tegay Soomaaliga hay-addu waxay leedahay BBC danu ka shaqeynay sharci bay leedahay qofka shaqaalaha la soo qoro waxa uu horeeyo la baro waa xuquuqdiisa waddanka Ingiriiska dadka shaqeeyo way joogaan halka oo badan yihiin waxa ku xoog badan ururada shaqaalaha oo xuquuqda shaqaalaha dooda hay-ad walba gudaheeda wakiilay ku leeyihiin sharci u daafacay hay-adahaasna waa laga dacwoodaa waaxda shaqaalahana waa laga dacwoodaa haddii aad dareento in xuquuqdaada lagu xadgudbayo haddii aan labada ku qanacsanayn waxa laga dacwoodaa maxkamado tribunals industrial tribunal yiraahdo oo magaalada ka jira intaasoo dhan lagu kala bixi karaa haddii ay lacala ku dhaafto shaqada ka tagto kadib aad u soo go'ato waa ka culus tahay laakiin haddana still way ku furan tahay sharciyadii inaad hor tagto oo aad dacwooto sabab bulshada Soomaaliyeed iyo campaign iyo idaacado iyo looga hadlo waa sabab kale ma aqaan anigu marka waxa weeye gabadha walaashay ah oo aan wada shaqeynayna oo hadashay Aamina Muuse Weheliye wax aan sharaf iyo qadarin ahayn aan u baahay wax aan ogaa adwaasantay wax aan ogaa dhibaatooyinka dhex yaalana ma jiro waxaan ka qaban karna ma laha sharci baa yaala marka taas intaas way gudbay hadda waxaan qiyaasay mawduucaas ka hadlaysay adwaasantay